Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaynu bilaabi doonaa cashirkeenii tobnaad kaasoo aynu ku baran doono poster design ama social media design part 2. Waxaanu samayn doonaa markaa designka halkan inooga muuqda. Designka labada kalar ka kooban aynu samayn doonaa. Waxaynu ku bilaabanaa markaa cabirka. Cabirkii maalinka hore baan isticmaali. Waxaan leeyahay new dabeetana 843 iyo 843 baan ku daynayaa. Orientationkana waxaan leeyahay markaa portrait, resolutionkana 300. Color mode-kana RGB baan leeyahay. Waxaan markaa create. Markaan cabirka soo samaysano laba kalar baa markaa halkan isku dhex jira. Labadan kalar baynu markaa samayn doonaa. Waxaynu leenahay rectangle baan soo qaadan doonaa. Rectangle baan soo qaadan doonaa. Ilaa halkaa kusoo jiid. Ilaa halkaa kusoo jiid. Kalarka markaa kalarkaasaan siin doonaa. Stroke-gana waan ka xidhayaa. Intaa marka sameeyo rectangle labaad baa haddana soo jiidi doonaa. Rectangle-kii labaad. Waxaan leeyahay markaa ilaa halkaasaan leegsiinayaa. Kalarkana markaa waxaan ka dhigi doonaa yellow. Stroke-gana dhan wuu xidhan yahay. Intaa marka sameyno waxaan u gudbi doonaa markaa background-ka yar ayaan u gudbi doonaa. Background-ka yar markaas aan u sameeyo isagana waxaan leeyahay kama tegayaa. Waxaan tegi doonaa file. Waxaan leeyahay place input. Background-kaan soo qaadi doonaa waa kan. Yellow-ga dushiisaan dhigi doonaa. Halkaa markaan dhigo waxaan leeyahay qaybta normal ay ku qoran tahay baan iman doonaa. Deetana waxaan leeyahay multiply. Multiply markaan idhaahdo dhammaan wuu wada geli doonaa. Ctrl+T markaan sii yara weynaysiiyo. Background-ka markaa saasaan u wada gelinayaa dhammaantood. Waxaynu samaysanay iminka markaa labadii rectangle, labadii shape iyo background-kii. Shandadaynu soo qaadan doonaa. Waxaan leeyahay place, file, kana place input. Shandada waa tan. Open baan leeyahay. Sawirka shandada waa kan. Waxaan samayn doonaa markaa background-ka ka jaraynaa. Waxaan leeyahay Image eraser tool. Deetana click baan leeyahay. Background-ka caddaankaan ka saarayaa. Caddaankaan ka saarayaa. Intaa markaan dhameeyo waxaan doonaa markaa Ctrl+T waan soo yara weynaysiinayaa. Ilaa meelahaasaan soo leegsiinayaa. Waayahay in yar aan yareeyo si qoraalka uu inoogu qaado meesha. Waxaan leeyahay markaa xigsiin doonaa. Harka yar baan markaa u samaynayaa. Harka yar saan ugu sameeyo shandada dusheeda markaa ayaan dhigi doonaa layer. New layer baan leeyahay. Okay baan leeyahay. New layer-ka markaa labadan baan isweydaarinayaa. Waa kan. Brush tool yar baan markaa u samayn doonaa. Taas oo kala ah. Brush tool yar baan saa u samaynayaa. Opacity-gana markaa 50 baan ka dhigayaa. Opacity-gana waxaan ka dhigayaa 50. Baan leeyahay. Intaa markaynu samayno harka yar waxaynu tegi doonaa qoraalada ma bilaabanaa. Labadaa qoraal islaan markaa qorayaa. Shape tool-kan tegayaa. Shape tool-ka waxaan leeyahay click. Waxaan ku qorayaa new special baan leeyahay markaa. Markaasaan waxaan ka dhigi doonaa yellow. Afartan markaa waxaan leeyahay okay baan leeyahay. Marka sameeyo koona waxaan dhigi doonaa. Waayahay. Horta laftirkeedaan koobiyeynaya Ctrl+J. Double click waan masaxayaa. Qoraya markaa school bag. Waxaan highlight garaynayaa. Farta nooceedaan bedelayaa. Amount baan ka dhigayaa 20. Si farta loogu shubto Photoshop-ka waxaa waynu arki doonaa insha Allah. School bag. Fartana waxaan ka dhigayaa kalarkeeda caddaan. Waayahay. Intaa marka sameeyo waxaan u gudbi doonaa labadan qoraal baan u gudbayaa markaa price-ka iyo delivery-ga. Angle baan soo qaadan doonaa. Markaasaan kusoo jiidayaa.
colorkan waxaan ka dhigaa marka caddaan, rowgan waxaan leeyahay none, rowgana none. Intaa marka sameeyo qoraalkii waan soo qaadanaya marka. Qoraalka markaan ku qoro waxaan leeyahay price, qoraalka marka yellow baan ka dhigayaa, control A T waan yareynayaa. Markaan marka saa price ugu qoro midana marka haddana bartaan koobiyana control J inaan qiimihii ku qoro waxaan leeyahay marka 50 baan leeyahay, colorkana caddaan baan ka dhigayaa marka. Waayahay bartan laftirkeedaan koobiyeysanaya control J dhiganaya free home yellow aan ka dhigo okay baan leeyahay, bartaan yareeyo control T. Waayahay waan koobiyeynayaa saan delivery ugu qoro, delivery baan ku qorayaa marka. Waayahay deliveryna caddaan baan ka dhigi doonaa. Intaa markaan sameeyo waxaan u gudbi doonaa marka qaybta contactska iyo orderka ayaan u gudbi doonaa. Waayahay contactska aynu sameyno waxaan leenahay qaybta markaan tegayaa qoraal waxaan ku qorayaa waxaan leeyahay to order waan yareynayaa marka afarta kalarkeeda madow. Size-kana waan yareynayaa. Bartan waxaan ka dhigi doonaa Nesa. Waayahay intaa markaan sameeyo iyada laftirkeedaan koobiyeynayaa control J halkaan kaba soo dhigi doonaa. Waxaan leeyahay marka number baan ku qori doonaa, bartan waan bedelayaa 20 qiimo waan leenahay marka in yar aan soo weynaysiiyo. Okay baan leeyahay sidoo kale waxaan sameyn doonaa shay baan soo qaadan doonaa halkaasaan soo dhiganayaa row baan ku sameyn doonaa marka hareeraha kasoo rixoodaya halkaasaan imanaya deetana saasaan usoo rixoodaya yara daro markana madowgaasaan ku daynayaa qoraal baan ku dhex qorayaa marka waxaan leeyahay order now halkana haddana ka dhiga farta okay baan leeyahay. Intaa markaan sameeyo halkaasaan usoo dhigo waxaan sameyn doonaa marka kuwaasoo keliya ii hadhay qaybaha yar saan u sameeyana waxaan tegi doonaa shape toolka goobaan soo qaadan doonaa goobo yar waxaan kasoo dhigan doonaa kalarkeedana caddaan baan siin doonaa strokana waxaan leeyahay none. Markaan sameeyo control J baan leeyahay dhigi doonaa ilaa meelaha 6 midh control J 4 midh baan ka dhigi control J kana waan keenayaa iyaguna baan iska koobiyeynayaa markaas ay u bataan control J haddana okay
okay posterkeena maanta markaa saas ayuu inoogu dhammaystiran yahay posterkeenu u ekaysiina waa kan kaynu samaynana waa kan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu